calanka.com. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال مeel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena fanka iyo fanaanka oo aad kala socotaan shabakada caalamiga calanka.com ama calanka TV oo idinkaga imaanayo magaalada Oslo ee wadanka Norway. barnaamijkeena fanka iyo fanaanka waxaan ku wareysanaa fanaaniin Soomaaliyeed kuwii hore kuwii dhexe iyo waliba kuwa cusub ee hadda soo kacayo. barnaamijka wuxuu isugu jiraa mid taariikh looga sheekeeyo, mid nabadda looga sheekeeyo iyo waliba mid dadka historyga ama taariikhda ku dhacda faneedkooda inooga sheekeeyo. barnaamijkeena caawa waxaa marti inoogu ah fanaan caan ah, dadka Soomaaliyeed aad u yaqaanaan, fanaan qiimo badan, wadani ah, fanaan isku darsaday fankiisa dhinacyo badan. waa qoraa Soomaaliyeed oo dadka ay garanayaan. waa alfanaan waa legend Bashiir Cali Xuseen oo degan wadanka Norway. in badan dadku wayna weydiiyeen laakiin caawa mahad الله يا إسكال أو برنامج كأيوم مرتين وياهي وحنكون ورئيس دونا عرف مفر بدن أنا جو ورئيس جيس أنا كوسو كوم كر تاريخ ديسا برنامج كان أوكليا أنا وأنا جعلنا برنامج كلنا كوسو قد من تاريخ ديسا أو آد ودير بشير وحنكوسو دوينا تي في كعلنك مش كذا علنك إيه كسو أنا كلنا كوسو دو ودك النرويج. هذه أدوات معصنة والكل وهي برنامج كان يسدا ما عليه هذه قدرسين وكوسو دويسين برنامج كان تي في كعلنك. بشير أنغو برنامجكنا aan isku day inaan soo koobno taariikhdaada mid aan ka sheekay karna hadda ma aan sidaan ku xusay hadalkaygii hore waxaan jecelahay inaad turxaan bixiso ama wax yar aad nooga sheekayso fankii hore iyo fanka maanta aad baa mahadsantahay waa su'aal loo baahnaa fankii hore iyo fanka maanta marka la leeyahay waxa u dhaxeeya fankii dhexe ayaa u dhaxeeya طبعا jiilba jiilkiisa ayuunu ku cabiran yahay marka dareenka laga hadlaayo iyo qofka sidoo ma taqaanaa ee ugu dhiiran yahay fanka iyo ka helidiisaba fankii hore wuxuu ahaa mid urursan wuxuu ahaa mid dheelitiran oo aad u turxaan baxsan anshixiisa iyo asluubtiisa la ilaaliyo inta badanna dadka hibada u leh habsugaaneedka ama maasada soo tuurideeda ay ku beeran tahay anshax ahaan inay ilaaliyaan xilligan la joogo hadda waxaad moodaa dadka fanka soo galaya in wax badan oo looga baahnaa inay fanka anshaxiisa ilaaliyaan ay ka maqan tahay taana dhaliil kuma laha oo ma aysan helin waddadii hogaaminaysay ee ay uga bixi lahaayeen inay muxuu ahaa ay ku gaaraan ilbaxnimada fanka laakiin marka la fiiriyo taya ahaan sida uu fankoodu yahay waa la jaan qaadi karaan qaarkood waaba ka wanaagsan yihiin fanaaniintii hore laakiin ayaa ku jirta meeshaasi waxay u baahan yihiin hoggaan ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin toosin ay u baahan yihiin haddii ay qaadanayaan way واتهاي بشير waxaan jecelnahay inaan ku weydiino waayihii ugu dambeeyay waxaan naqatay nin qoraallo ku cabiro dareenka wadaniyada ay ku dheehan tahay ku aadan gudaha ama siyaasadda dalka Soomaaliya maqaalo ayaad qortaa oo wacyigelin ah dhan walba isugu jira ama siyaasadda waxaad muujisaa oo aad ifisaa dadka Soomaaliyeedna aad tusisay barnaamij la yiraahdo daljirka dahsoon oo sanadkii mar sameeyso adigoo maqaaladaada iyo barnaamijkaas aad inooga waramayso bal aragtidaas ay waragtaa واجد تاسي قرالك يا سوغانتا وأن هذا لبضوا هذا وحنا مركع يهين ماسو تح بالي رواتح مركع وهذا اللي هنا وتراب أما هذا اللي هورار
markaad heesto oo aad maanso ku heesayso ama aad maanso tirinayso waa hawraar marka aad qalin qaadato ee aad wax qorayso ama aad caadi u hadlaysana waa hadal labadabana waxbaa lagu gudbiyaa fariimaa lagu gudbiyaa waxa ugu weyn oo la gudbiyo oo dhanka hadda aad iga weydiisay ka mid ah qoraalladayda dadka in lagu beero dhanka wadaniyadda in wadaniyadda looga sheekeeyo in wadaniyadda waxa ay tahay loo soo bandhigo taasoo ah waajib qof ka saaran dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba ka saaran marka aniga waan isku dayaa labadaba inaan sameeyo inaan suugaan ahaan sameeyo inaan muxuu ahaay sameeyo muxuu ahaay qoraalladayda sameeyo waana wax ugu jira dareen ugu jira weeye oo aan jeclahay inaan bulshadayda la qaybsado واتهاي داود يال برامج كنا قبيس الدبه يعني كوزا جرنا سؤال دور يعني بشير ولي هريا لا جعلنا ويدين ولي بكود وهم يمسن يدوينها يات كحيسنا وحكم ده فنان وحتى هاي وين مقعداء بشير وفنان سوماليات دتكو ودي خنان فنانين سوماليات كودا ودنيجا ودنيين تاه وهذه قاعد هرمود كوتا هاي يا دلك كلها بناي أركتي أهان فنانين تدلك كلها بناي سيدو أركتها هو مهم ومثل بهنا إن اللي ويديو laabashada dalka lagu laabanayo horta mar walba ama soo degdegto ama gadaal ha u dhacday waa mid lagu qasban yahay oo dalka aynu joogno Kenya ma aha annaga kan hursan oo aynu mar walba tagi doono jiilka soo koray ay tagi doonaan caruuraheena ay tagi doonaan gurigooda uu ku yaalo waa dalkeenii hooyo marka u soo laabto fanaaniinta iyo dib u laabashada hadda qaabka ay u noqonayaan waa iftiin loo baahan yahay waxay ka mid tahay dhismaha dalkay ka mid tahay waxay ka mid tahay ka qayb qaadashada amniga ka mid tahay waxay dadka tusaysaa indhaha caalamka tusaysaa fanaaniinta meesha ay tagaan inay nabadi ka jirto ayay tusaysaa waa hambalyeynaya fanaaniinta tagtay iyo kuwa tagi doona intaba waa hambalyeynaya madaxda soo dhaweysay ee ku howlan inay soo dhaweeyaan fanaaniinta imanaysa waa hambalyeynaya laakiin hal fariina oo meesha ku jirta inaan gudbiyaan jeclahay taasoo ku aadan madaxda ay qosayso oo dalka joogta dhan kastaba gaar ahaan gobolka Banaadir tixgelin bay mudan yihiin fanaaniintii 20 sano wadanka joogtay ee aan meelna uga bixin ee xabadda ay dushooda ku dhacaysay ee barakacayay ee gaajada iyo dhibaatada ay ku dhacaysay walina dalkii jooga wax qabad bay mudan yihiin in wax loo qabto oo iyaga la tixgeliyo oo barnaamijyada dhacaya iyaga lagu qiimeeyo ayay mudan yihiin ma aha kaliya ninka dibadda ka yimid in lagu qanciyo la buunbuuniyo isaga kaliya maaha labadaba waa loo baahan yahay waa in la isku dhinac wadaa fanaanka dibadda ka tagaaya ee halkaa tagaayana marka ugu horreysa waa inuu qiimeeyaa fanaaniinta walaalihiisa ee uu u tagaayo ee waddankii aan ka soo bixin weligoodna meeshaas joogay ta kale waxaa loo baahan yahay tegitaanka meesha la tagaayo dalxiis ma aha waxaa loo baahan yahay inay noqoto mid wax dhisaysa waxaa loo baahan yahay in aqoonta loo tago waxaa loo baahan yahay in qaxootiga loo tago waxaa loo baahan yahay dakhli ururin in la sameeyo oo barnaamijyada la dhigaayo aan jeebka la gashanin ee waddooyinka iyo nalalka iyo caafimaadka iyo iskuullada iyo wixii ku bixi kara lagu bixiyo waa dardaaranka aan gudbinayo fariinta aan barnaamijkan ku darsanayo waa mahadsantiin واتهاي بشير وحن جعلها مركان إن كويدية وأيه قدام بيجي دلنيار الصوماليات بسوق عادي أبوانا بيسوق جيران قاربة فنانين أو هيسو قاربة موسيقية دون والبطلات كسيسة وأيه قدام بيجي هدي أنا أسوق قدام قالوا هيسو حساب بحي برت يوتيوب كما تي في الصوماليات لقيتي داي قارهان هيست الشرب كإيتما وقادو فنان كحسين نوريو أو رير أشلا أريد واحد سميه نين دليرة حسين مدوبي أدي والله حنك يا سارتي شرب كإيتما ضد صومالية دوات وفرق بدن أيام معني جرون واي لكن واجد مركي هسه بحد موسيقى رتي فيديو لو سمي ضد كي بفهمي معناها هسه قدام شرب كإيتما وحكوسو حكته واسمي ستضباط كان قبل يد إيتما بل نقش كيف لحمد سيدا سميسو مركا لقى الله شرب marka laga hadlayo gabley shimbir waxay ka mid yihiin ciyaaraha idaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin laxan anigu aan sameeyay maaha marka heesta laga reebo meeshan laba isku kaban shiribka marka leedahay hadda heesta ay caan baxday dadku ay aad u xiiseeyaan oo ah shiribka Iituma waxa isku jira
hees afka hore hees la soo sameeyey gadaalna looga kabay shiribka habdhicii shiribka marka samaynta shiribka iyo sidoo u dhacay lixan aan ugu sameeyay maahay waa hidde iyo dhaqan Soomaaliyeed oo jira way laguna qurxiyay heestii صح soo bilaabatay lagu dhameystiray sidoo kale gablay shimbirta ama gablayda way hiddaha dhaqankay ka mid tahay iyaduna hees soo bilaabatay ayay dhamaad u noqotay marka afka hore ayaanu ka laxmeeyay inta dambana waa intii jirtay oo hiddaha dhaqanka ahayd jacaylka iyo ka helitaanka inta badan dadku ay xiiseynayaan waxa keenaya hiddaha iyo dhaqanka ka dhex muuqdo marka waxaan dhihi lahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee wax la xamaysa iyo abwaanada Soomaaliyeed ee wax tiriya inay dib ugu soo laabtaan qadkii hore inay dib ugu soo laabtaan oo hiddaha iyo dhaqanka ay hirgeliyaan gobol walba iyo tuulo walba ciyaaraha ka jira hiddaha iyo dhaqana inay tix raacaan kuwa oo ay heesaha ku dabaqaan oo ay soo bandhigaan bulshada u soo bandhigaan waayo waxaan dareemayaa laxamadii inay qadka ka sii baxayaan una sii dhawaanayaan kuwa aan kuweeni ahayn dhanka westernka inay u sii dhawaanayaan ayaad moodaa marka dadka waxaan leeyahay ku soo noqda hiddaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed ku soo laabta heesihiina ku dhista heesihiina ku hirgeliya dadku way baranayaan dadku way jecel yihiin way la yihiin cid u samaysa oo u gudbisa waad mahadsantiin بشير أنا جعلنا هاي إن برامج كنا ساحر فرين بعد ضد قدرتي تدوينها كداونا يا وكو أدن فنانين تدلك كلها مناي هذه وكفاية سنة في السودان أنا كأجمع هاد علني نعسومات عاوة نجاق بشيء برامج كنا فنك يفنان كنا نجلق يبقى فرين هذا قدام بيسوا عن كسينا المحتاج فرين هذا قدام بيسوا ميت جود فرين هذا أنا مرهران برنامج صادقي مرور بنوا كوع العليا مرور بنانك يطالع فرينتيدو وصومالي وامد وأولي ميرح متانا ويوميل بيكوذا تمد ميديغي بديحي ما كمارنتا مدحو مجها ما كمارنتا مسكحي أقون ما كمارنتا مرنو قرصور ما كمارنتا ماتيي دريال ما كمارنتا مسؤولو شعبيغا ما كمارنتا ومديهي مدنيمو ما كمارنتا فرينتيدو واتهاي داوديال heestaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena oo aan idin saarayna barnaamijkeena waa fanka iyo fanaanka waxa noo soo socda barnaamij kale oo aad u xiiso badan anagoo muddooyinkan kala maqnaynay barnaamijku waxa idin la socodsiinay anigoo ah Cabdi Fataax la jeclow dhanka kaamirada iyo waliba isku dawaridka iyo soo saaridda barnaamijka waa saaxiibkay deeq intaan barnaamijkan la mid aan hawada ku kulmi doono oo anigay Bashiir oo idinkaga tagayna heestii Soomaaliya iyo midnimo ka maartaan iyo fanaan Bashiir Cali Xuseen oo barnaamijkeena caawa martida nooga ahaa salaamu alaykum ومضيها من
midnimo ma ka maarantaa maamul dawladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dawladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey midigta isqabsada isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey midigta isqabsada calanka.com